Waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Mudug lagu ku soo biiray cudurka loo yaqaano kaduudshaha oo farabadan ku haya bulshada ku nool deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Mudug. Bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka cabanayay xanuun daran oo wato cudurka loo yaqaano kaduudshaha oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo kordhay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Mudug. Bulshada ayaa waxa ay sheegeen in cudurkani uu yahay mid khatar ah isla markaana dhibaateeya bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Maalintii boqolaal ayuu soo ritaa cudurkani waxaana uu wataa qandho aad u daran isla markaana qofku mirdaboolmaya. Waxaana bulshada ay sheegeen in cudurkani uusan ahayn mid daawo leh isla markaana bulshadu farabadan uu ku hayo. Cabdiqaadir Cismaan Xasan waxa uu ka mid yahay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaana uu ka warbixiyay cudurkani iyo saameynta uu ku reebto qofka xilliga uu soo rito. waad mahadsantahay walaal cudurkan kaduudshaha wuxuu farabadan ku hayay muddooyinkii la soo dhaafay haatan magaalada Gaalkacyo iyo nawaaxigeeda. cudurkan uu watay qandho daran oo qofka aad iyo aad ula miir doormayo haatan waxaa la daala dhacay dadka badan dhowr boqol oo qof weli lama jidho hay'ad UNICEF oo hadda dadka tiro koobtay tirsigooda laakiinse qiyaastii aqliin markii la fiirsho magaalada 3 meelood meel iyo bar xanuunkan wuu haleelay haddana dawadiisa dadku ma hayaan weli taageero dhan dawladda ka socota laakiinse waxa la daal dhacaya irbado iyo kiniin qof walba jeebkiisa iyo wuxuu heli karaa. haddana alxamdulillah waxa kale u geeriyooday weli ma hayno laakiinse aad iyo aad in dadka cudurkan oo qandhadiisu ay u halakaysay ayaan kugu sheegi karaa. yaa ku cadeyn karaa inuu yahay kaduudsho maadaama cudurkan dadka ay ka cabanayaan inuu yahay kaduudsho dhankii idin cadeeyay. anaga hadda cilmi nafsi kale uma hayno hadda buwaag hadda qolka qoraa ma jidho magaciisa rasmiga waa laga yaabaa afafka qalaad in magac kale loo yaqaan laakiin anagu cudurkan dhowr jeer oo muddooyin kala dambeysay ayuu carrada yimid kalow caadiyan Soomaali ahaanta kuduudiya loo yaqaanaa. kuduudiya waxa lagu baxshan adnimada ayuu dadka ka soo bilaabaya iyo gacmaha asagoo markaas diidaya hawlihii qofku qabsan lahaa inuu qabsan waayo iyo qandho fara badan oo sida malaariyada meel ka metasha. marka anagu hadda kuduudiya loo yaqaanaa kalow xanuunkaas waana xanuun aad iyo aad u qandho badan weey. sidoo kale cudurkani ma lahan daawo waxaana uu farabadan ku hayaa bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. dadka ayaa u isticmaala xilliyada uu soo rito cudurkani kaniiniyaasha xanuun baabi'iye iyo waxyaabo kale maadaama uusan lahayn daawo toos ah oo loo isticmaalo cudurka kaduudshaha. Cabdiqaadir Cismaan Xasan ayaa mar kale yiri daawo rasmi ah hadda uu leeyahay ama taqaadiirtu iyo inta u fariistan qubaradu hadda loo soo saaray weli nama soo gaarin mana hayno mana jidho hadda gobolka aan joogo laakiinse dadku qandho jibin iyo irbado iska antibiyootik iyo waxyaalahaas isticmaalaan qofka Ilaahay ku raysanaya waa ku raystaa qofka kalena qandhadu aad way ugu raagtaa walow hadda dadka uu isu qabanayna qofka laga yaabo saacada inuu si u qabto dad 9 bari 2 isbuuc dad ku gaara dad 24 saac u nahay ku leeyihiin laakiinse wuxuu u egyahay Ilaahay ka badbaadiyay si saf galaala dadku inuu aad ugu halakeenayo ama u marayo. niyo marka saawi alxamdulillah da geeri hadda kale wasaasana maana maqal oo ka timid laakiinse aad xanuunkaas loo ildiray xanuunka cudurkan. Ismaaciil Abuukar Kasmaal Group Gaalkacyo.